ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا وولادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، تحب القوم جمعا لا فرادا. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا. جامع الأشتات أنت مذ عرفناك، بك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها، للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إلaahay subxaanه وatacaala wanaagyada uu nagu manaystay waxaa ka mid ah guurka, waxaa ka mid ah is-arooska, waxaa ka mid ah lamaanaha, waxaa ka mid ah aqalgalka guryaha islaamka oo markaa la badiyo. ilaahay wuxuuna yidhi waankixu alayaama minkum. haddii inta qolka aan ka hadalno aan dhahno aan isguursada oo diinta alle ku dadaala, saad cafiifiin u noqotaan, sad cafiifaad ay u noqdaan dumarka, xaalku markuu sidaa noqdo anagoo isku guurnay bay lamid tahay, soo maaha? haddaan intaan mashruuc samayno, mashruucaasi aan ku talagalno in zawaajka lagu badiyo, ayadana anagoo isku guurnay bay ka mid tahay. gabadhayda marka aan wiil siiyo oo isku guurinay, ninka wiilkiisa haddii gabar loo raadiyo la siiyo, wa ankixu alayaama minkum, war xasaabayaasha isku guuriya. wax fara badan baa wanaagsanaanaya. caawa ma raba inaan idin dhaho guurka fadligaasuu leeyahay iyo fadligaasuu leeyahay. caawa ma doonaya inaan idin dhaho qofkii guursadaa fadligaasuu helaa iyo fadligaasuu helayaa, laakiin caawa waxaan doonayaa inaan dadka guubaabiyo, inaan dadka kiciyo, hala guursado, halays arooso inaan dhaho ayaan caawa ku talagalay haddii rabbi idna subxaanahu watacaala. jaabir ibni cabdillaah miyuusan ahayn intuu nebigu ka daba yimid, waryaa ma guursatay? waryaahe ma guursatay? ihtimaamka uu siinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam, dhallinyaradaasuu u dhexgelaya sala allahu calayhi wasalam. markuu salaamo qofku wuxuu leeyahaye xaas miyaa tahay? walaalayaal ogaada, waxaa dadka u liita iskaabulayaasha, dadka aan xaasaska lahayn. qofkaan 4 xaas lahayn baa dadka u liita, ama aan 3 lahayn, ama aan 2 lahayn, ama aan mid lahayn, ama aan mid lahayn. waxa ugu fiican qofka guurka ku dadaala, waxa ugu fiican dadka khayrka iyo wanaagga badiya. saa darteed bulsho isku duuban waxay khayr iyo wanaag ku gaartaa waxay tahay waa mar allaala marka dadkooday xaasas yihiin. dholalka carabta markaan joognay, ninka iskaabulaha ah ee xaaska aan lahayn inta badan guri lagama ijaari jirin.
caaila walaa cazuubiya uu ku leeyahay ninka carabka ah. hore caayil baa tahay famil maa tahay mise waxaa tahay dhalinyaro. cazuub markuu ku dhaho maa fii beyt buu ku leeyahay. haddaad dhahdo xaas baan ahayna maasha allah ninka ugu maasha allah buu ku leeyahay. subxaanaka yaa ilaahay. wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha. gabadha caaba la guursaday iyo tii daraad la guursaday iyo tii bishii hore la guursaday iyo tii sanadkii hore la guursaday iyo tii 10 sano ka hor la guursaday way xasilan yihiin oo way degan yihiin. kuwa kale weli ilaalay ku jiraan soo maaha. ilaalay ku jiraan. ninkii soo gala, ninkii meel mara, ninkii hadla, ninkii dhaho, kulli waxay moodayaan wax kale. laakiin gabadhu mar allaala markii ay guri gashay oo ay guursatay walaalayaal, allahu akbar. ma idin sheekeeyeen dumarka guursaday oo guurku u toosay? ka hadli maayo midda guurku ka halaabay. xanafi baa hadda ka hor ka sheekeeyo hala sheekaysanina oo hala tashanina buu yidhi dadka guurka ka halaabay. xaqiiqdu waa runtii. habeenka oo dhegaysanayay hala sheekaysanina dadka guurku ka halaabay. gabar 40 jir ah ayaa la waraystay. waa garoob. ayadoo yar baa la guursaday. adduunku waxay ugu necab tahay qofkii guurku soo qaada, waayo guurkii baa ka xumaaday. ayadoo hadduu ka xumaaday adigu ma kaa xumaanayaa? jawaabtu waa maya. wuu kuu toosin karaa. ilaahay baa imtixaamay subxaanahu wa tacaala. ilaahay ayaa imtixaamay. dhib kuma sugna. sidaa darteed waxaa lala sheekaystaa dadka uu guurku u hagaagay. qof kasta khibradda kheyrka ugu fiican ayaa lala sheekaystaa. nin 4 naag qaba oo tuulo deganaa, asay xaasaskiisii baa isku dhacay baa la yidhi. 3 nin baa loo diray say u dhexdhexaadiyaan. 3 nin ayaa loo diray. mar allaala markay 3 nin soo fadhiisteen, ninkiina soo fadhiistay ayna rabaan inay dhexdhexaadiyaanna ay markaa ay rabaan ayuu la hadlay. markaasaa wuxuu yidhi baa la yidhi, aryaha kaale adigu magacaa? hebel baa lay dhahaa. meeqa xaas baad leedahay? mid baan leeyahay. adiguna magacaa? hebel baa lay dhahaa. meeqaad leedahay? mid baan leeyahay. adiguna magacaa? hebel baa lay dhahaa. meeqaad qabtaa? mid baan qabaa. iga kacab u dhahay gogosha, mabay dhexdhexaadin kartaane? maanagaa isku darajo ahba. hal baad la haysataanoo hal baad meel la fadhiisaan doonaysaa nin 4 xaas dhaqaayay oo 4 xaas baamulo inaad dhexdhexaadisaan miya? ordaha buu yidhi khayrkii dad kale ha i yimaado, idinka imaa dhexdhexaadin kartaane. runtiis macnaha qofka mar allaala marka leebal ahaan ay siman yihiin waa suuragal. waayo waxaa laga yaabaa inay ku bineeyaan habka ay rabaan inay u dhexdhexaadiyaan sidii nin hal naag qaboo kale. ninkana darajuu dheer yahay, darajo 2 buu dheer yahay, mid 3 buu dheer yahay, mid 4 buu dheer yahay. keef isku mid ay u noqonayaan. idan la sheekaysta dadka guurku u toosay. la sheekaysa ninkii shalay daciifka ahaa, iskaabulaha ahaa, ee maanta asagoo catarkiisii iyo dharkiisii ay wada taagan yihiin bannaanka u soo baxaya. guurku waa wanaag. waa laga yaabaa shaarka inuu maanta ka caajisa inuu siibo ee uu geeyo doobiga ama meelaha dharka lagu dhaqo. laakiin maanta inantii saalixadda ahayd ee ilaahay faraha u soo geliyey, markuu saasuu istaagay kuleetigiisa la eegaya soo maaha. dumarka gobol ka mida wallaahi ragga qaarkood nolosha ay ku jiraan, subxaanaka yaa ilaahay, waa jannadii adduunka. saasaa kuleetiga loogu eegayaa. allah abbaaya shalaad dhaqday iska sii daa. maya bixi baan leeyahay, kale kaawadaysan qaado bixi. miyayna nolol ahayn walaalayaal? xayaatada ugu xun xayaata kalbiya lagu magacaabaa. xayaatada aan sawjada ahayn, xayaatada aan sawjiyada ahayn waa xayaatada ugu liidata, waa xayaatada ugu hoosaysa, waa xayaatada ugu hoosaysa. saa darteed baa qolo meel fadhisaa nin soo maray baa la yidhi intuusan weli guursanin. zayunaas bay dhihi jireen. dadkuu la mid yahay kan macanug yaroo derbi kabuud ah. zayunaas wax kasta. 7 maalmood bay waayeen baa la yidhi. maalintii kale buu soo maray asagoo dhalaalaya. xaggee jirtay? waan guursaday. axsan naas waa dadka midka ugu fiican.
khilaafaa dhaco gurigii baa burburay isagoo si kale ahoo kabna gacanta ku wata midna lugtay ugu jirto camaamada uu jiidayo gacanta ku haysto moobilkii laga yaabo inuu garabka korkiisa saartay isku dardarsan asagoo dhanba ayaa meesha soo maray alla maxaa ku dhaca naagtii buu furay akhasabnaas bay yidhaahdeen subxaanaka yaa ilaahay marka meesha waxaa laga fahmayaa xayaatatan u fiican ee akhwaatii waa xayaata zawjiya gabadha ninka leh iyo gabadha aan ninka lahayn isku fiiriya mas-uul waa mas-uuliyad subaxii bay toosaysaa waraac bay karinaysaa waxbay hagaajinaysaa ninkii baa baxaya guriga ka shaqaynaysaa kama gaarta mataqaanaa sheeko kama gaarta meel fafadhi waa mas-uuliyad xataa labadooda ha ahaadaano xataa ninka keligii ha ahaado xayaata fiican walaalayaal guurka waa muxaadarada cinwaankeeda sida walaalkeen xanafi uu tilmaamay guurka yaa xasratan cala alcibaad waa addoomaan weli guursanin addooma aan weli guursanin yaa xasra qowmamo shallaay laakiin shamaata faraxsanaan nolosha dhabta ah waa nolosha aad mas-uul ka noqotay qof dumar ah adigana waa nolosha aad la qaybsatay zawj qaayaha labaad ee dumarka loo abuuray cibaado kadib maxay tahay walaalayaal dumarku maxay u khalqan yihiin dumarka waxaa loo khalqay khuliqat lirajul rajulkaa loo qalqay waa bacda cibaadati illah subxaanah wa tacaala watadaruuna mar allaala markii luut qoomkiisii ay u soo hanqal taageen ee malaa'igtii ay moodeen wiilal dhallinyaro ah oo ay damceen inay liwaadka ku sameeyaan muxuu yidhi wardaaya watadaruuna maa khalaqa lakum wixii ilaahay idinka idin abuuray oo min aswaajikum xaasaskiina ka mid ah dumarka anagaana loo abuuray haddaynan jiri lahaynna dhibaato fara badan baanu gaari lahayn madax xanuuna kama aanan baxnayn dhibaatana lagama bixi lahayn mashaakil iyo wareerna waa lagu sugnaan lahaa dumarku waa nimcooyinka ilaahay kamida ee rabbigeenna siiye subxaanah wa tacaala caqligooda in nus laga dhigo taabaa kaliftay in ilaahay naxariis adag uu ku abuuro taabaa kaliftay ilaa nebi moxamed uu yidhi sala allahu calayhi wasalam fiidka hore ma garaacaysaan sakda dhexena masariiftaad la aadaysaan inta fiidka hore wax kaa dhacdhacaan oo gacan kaaga fakato yaad sirsiraysaa ood la hadlaysaa ood leedahay ukhti raalli ahaabo iyo cafi wax uga fiican markaa ma jiro rabbi baa ku beeray raxmad rabbi baa ku beeray mataqaanaa wanaag sidaa darteed wiilka si kastuu u naxariis badan yahay inantaa ka naxariis badan inanta ugu qalbi adag wiilka ugu naxariista badan ma gaari karo sidaa darteed baa waxaad arkaysaa mar allaala marka gabadha saalixad ay tahay rajulka marka uu xanuunsado xanuun marka uu qabto way ku dul ooyn way ku dul fikiri hurda kama timaado ma seexato ma cunto ma cabto nebi ayuub calayhi salaam xanuunku markuu ka bata yaa ku haray walaalayaal yaa xanaanayn jiray yaa mar walba mataqaanaa garabkiisa taagnaa sawjadiisa walaalihii way ka tageen dadkii way ka tageen sawjadiisa ayaa garab taagtay ayaa garab istaagtay xaaskiisa ayaa mar walba taariin iyo wanaajin iyo cinaayo ku haysay heer markii dambe xataa uu nadaray ee uu yidhi haddii rabbiga i caafiyo 100 ulood baan kugu dhufan doonaa 100 ulood ilaah muxuu yidhi mar allaala markuu caafimaaday wakhud biyadika diqfan waxaad soo qaadataa inantu inan saalixada waa ha garaacin 100 ulood ma xamili karto asagii waa nadroo nadarkii inuu ka baxo waa loo baahan yahay way qaadaysay way dhigaysay way xanaanaynaysay waa sawjadiisa labada sawjeen walaalayaal waxaa dhex mara nolol aan ummadda kala dhex marin xaqiiqda marka la fiiriyo wiilka iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaashii wallaahi nolosha dhex marta waxaa ka haysanoo ka saraysa nolosha xaaska la dhex marta nolosha ugu qiimaha badan sidaa darteed buu ilaah yidhi wakhud biyadika diqfan fadrib bih walaa taxnad inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab sawja yaa heli karaa
xayaatada ugu fiican waa xayaata zawjiya. caaisha maxay tiri radia allahu tacaala canhaa, ani iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam weel intaan dhexda dhigano ayaan wada qubaysanaynay. allahu akbar, allahu akbar, wada qubaysanaynay. inaan sameyna loo baahan yahay, inaan arintaa furina loo baahan, khaasan dadka cusub ee caruurta ayna weli ku badanin, gabadha la guursaday iyo tan weli caruurta badan aan imaanin. mar allaal marka istiraaxada aad qaadataan oo aad gaarto xilli maasha allah aanan ka sheekayn karin, sawjkaaga markaad u ducayso asaga uu kuu duceeyo, haddii ilaahay wax idin siiyo caanihiini aad cabtaan, ka warrama ikhwaani. iskaabul baraan ku fadhiya soo maaha, koobashiin buu ku cabayaa dhas iyo boor saa u maraya qaxwooyinka, koobashiin buu cabayaa iyo caano. adigiina maasha allah caano la filtaraareeyey, caano mataqaanaa hayl lagu daray, caano oo kharfo lagu daray, caano oo maasha allah ka kale maxay ahaa, waxaasoo dhan inta lagu carfiyaa dhinac kuu yaala. sawjo saalixad ah, salaad cishaa'igii tukatay, allahu akbar, markay seexanayso ilaahay xusaysay, cajal heesa ma laha, cajal xumaana ma laha, rabbigay xusaysaa subxaana wa tacaala, sawjkeedii raali gelinaysaa, dhinacaadu ay jiifto. aroos soo mahayn ciwaankii xaniif inoo sheegay, aroos magaciisaad ka fahmi kartaa. aroos marka la qabo gabdhaha oo dhan wada aroos baan maqli jiray, dhammaan gebigood dhammaantooda aroos. cilaan baa loo saarayaa, kulli cilaan baa wada cilaamanayaan soo maaha. ma ayagaa la aroosaya, maxay u cilaanteen? farxad. maxay u cilaanteen? maxay tan dirac u doonatay? tani maxay kaba usoo iibsatay? ayada maba la aroosooye, waxay u samaysatay mataqaanaa farxadday kala qayb qaadanaysaa. waa shay aayad ilaahay ah subxaana wa tacaala, mucjizo. waxaan cajib, xataa caruurta farxaaniin ah oo farxaya. ileen shaytaan laciin aha la fogaynoyaa, macaasi badan lahayd baa la yaraynoyaa, wuxuu ilaahay diidayaa laga hortegoyaa, wuxuu rabbi amray baa la samaynoyaa. aadam markii la qalqay xayaatada waa ku adkaatay inuu noolaado, keligii waa joogi waayey, xaawaa loo abuuray. anaga ku naqaan baa la yidhi. saa darteed baa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala guurku waxa uu ka dhigay arrinta ugu qiimaha iyo wanaagga badan. gabdhaha markay gaaraan xilli waxaa jira ay soo maraan dumarka oo lagu magacaabo xilliga fakadka. xilli aanba lala hadli karin baa jirta, xilli waxaa jirta ee mataqaanaa aan lala hadli karin, xilli waxaa jirta amar aan la siin karin, xilli ayagoo dhanba ay fagfag badan yihiin. kama rijaasha iyo wiilashina waa la mid, xilli bay soo maraan ayagana. labadaas xilli marka ay kala taagan yihiin, waxarta ka soo qaaday rida yariista ah, mar allaala markay waxoogaa soo weynaato, xataa markay soo cararayso waad aragtay dadka ariga raaci jiray iyo waxay sigaysaa inay lugaha kaaga istaagto. dumarkuna xilli noocaasay maraan, xilli wax walbaba ay moodaan inay ayagoo ka xoog badan yihiin. waxbaa saaran, waxbaa kicinaya, burhaan baa saaran cajiib badan, oo haddaan markaa laga hortegin dhibaato fara badan ay noqonayso, hadduusan ilaahaygayga u naxariisanin subxaana wa tacaala, hadduusan rabbigay ka soo gaarin. wiilashanu xilli noocaasay maraan oo ay moodaanba adduunka waxa jooga inay ayagu xoog badan yihiin. waxay marayaan xilli subxaanaka yaa ilaahay aabbihiis iyo hooyadii uu kala garan waayo, uu kala fahmi waayo qofka ka xooga badan iyo qofka ka xooga yar, magaalada oo dhan uu moodo inuu burburin kara asaga. xilliga noocaas ah marka lasoo maro oo wiilkuna uu gaaro gabadhuna ay gaarto, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si labadoodaba loo dejiyo waxau noo jideeyay zawaajka, guurka. wiil saas u fagfag badan balnaag ku darbo, aabihiis intuu saas u fiiriyo balnaag ha lagu daro. weliba walaalayaal xilliga noocaasa ugu fiican in la guursado. waxaan jaamacad baan dhamaynaa iyo mastered baan diyaarinayaa iyo intaan ka baxayaa iyo computer science baan qaadanayaa iyo waxba kama jiraan runtii xaqiiqda. xilliga noocaasaa la guursadaa, waa xilliga uu ugu dhadhan fiican yahay, waa xilliga uu ugu macaan badan yahay. qofku waa xilliga ladah uu dareemi karo. xaaladda noocaas waa xaaladda ugu qiimaha badan qofku markuu ku guursado.
waa shayga ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhigay xilliga noocaasa qaadashadeeda. markaas waxaad arkaysaa qofkii fakfagta badnaa iyo gabartii fakfagta badneed labadoodba waxay noqonaan iskaan. ilaa ilaahay tilmaamay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha. ninkiioo akhyaar noqday oo degay oo xasilay oo asagoo dhan maashaa allah ah oo la aamini karo. waayo xilli aan la aamini karin baa jirtay. xilli qofkii assalaamu calaykum yidhaahdaa laga yaaba inuu arbaaxo ku dhuftaa suurageli ka jirtay uu soo maray. laakiin xilli wuxuu gaarayaa ilaahay uu ugu talagalay xikmadan zawaajka ah qofka in lagu xasiliyo, inuu makin noqdo qof xasilan oo degan oo maasha allah markaa ah. sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu watacaala weliyaasha amray waankixu layaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum. faqriha uga baqina wax yar haddii loo helo in yakunuu fuqaraa yugniyahum allahu min fadlihi. idan adduunka maalina waa la haystaa, maalina lama haysto. maalin waa la helaa, maalin waa la waayaa, maalin waa la dargaa, maalin waa la qalaa. saasuu ku socdaa ilaa gabagabadii laga gaaro. meel aan lagu dhammaanayn waa maarta daarta aakhira marka la helo. haddaba guurka wanaagiisa ama guur wanaagga kaasaa markaa ka mid ah, taasaa ka mid ah. marka waxay ujeedadeena horaan u tilmaanaye ma aha nisfu diin buu ilaaliyaa iyo axadka markuu guursado faqad istaqbala nisfa diinihi iyo macnaha waxa waaye xaf waa gubaabo, waa boorin. fankixuu buu dhahaa ilaah subxaanahu watacaala. marka intaa waxaa laga qaadana in tarkiib laysku sameeyo, in laysku guubaabiyo, in qof kasta qofka kale wax khayr badan waaye inuu u dardaarmo oo xaaladiisu ay sidaa noqoto oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baqo. laba gabdhood oo iskaabuloo meel isla deganaa, mid baa guursatay baa la yidhi. waxaa taqriibanta kale ay ka dambaysay muddo adiga 3 sano oo kale ah. ilaahay amarkiis calafkii kale iska yimid, waa la watay tii kalena. mar allaala markii 7dii ka soo baxdaa waxay dagaal ugu tagtay baa la yidhi tii ka horaysay imtiqaana arooska. sababta maxay tahay? maxaad iiga qarisay nimcada noocan ah? hal maal xataa inaad timaado maxaa ii dhihi weysay? nimco aad iyo aad u weyn waay. dagaal labadoodii kala celis maxaa ka rabtaa? waxay iga qarsatay nimco aad iyo aad u weyn. idan nimcooyinka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu markaa ka mid yahay. idan waxaa muhiim ah oo loo baahan yahay waxay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisana la fuliyo, mar walbana la ilaaliyo xuduudda iyo shareecada inta karaankeenu yahay. arrinta noocan ahna inaan laga dayma la'aanin oo mar walba ilaahay subxaanahu watacaala khayrka iyo wanaagga inuu saa u noqdo. rususha marka aan fiirino ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu talagalay rususha inaan dumarka lagu ciriirinin oon loo waasiciyo. saasuu ilaahay tilmaama الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. si aysan ciriiri ugu noqonin ayuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala. saa darteed baa nebi moxamed sal alla alayh wasalam waxaa loo baneeyey 9 dumar ah. mar allaala markuu 9kii buuxiyey maxaa la yidhi laa yaxilu laka nisaa, dumarkuuma banaana min bacd. waa 9ka kadib laa yaxilu laka nisaa min bacd walaa an tabadala bihina أزواجا ولو أعجبك حسنهن. حتى قروحda ha ku cajab geliyaane jooji baa la yidhi. intaa maxaa loo sameeyey? inuu wusco helo, inaysan ciriiri noqonin. marba marka ka dambaysa inuu wusc iyo sakiini xasilooni deganaansho markaa helo. nebi yuunis asaskayga ka mid ah ayaan u tegi doonaa caawa ama 9 mid kasta way ii uuraysan doontaa. waxayna dhali doontaa fursaan mujaahid ah oo jidka ilaahay ku dagaalama subxaanahu watacaala. inshaa allah buu ka tegey. mar allaala markii nebi saaxiibkii yidhi inshaa allah dheh, asagana uu dhihi waayey, tawaafkiina uu sameeyey, wax uuraystaa la waayey ilaa hal naag maahane. nisfu insaan bay keentay siduu nebigu tilmaamay sal alla alayh wasalam. sulaymaan hadduu dhihi lahaa inshaa allah dhammaantood fursaanin bay noqon lahaayeen. waxay noqon lahaayeen ahludiin, macnaha way wada uuraysan lahaayeen, way dhali lahaayeen, waa weyweynaan lahaayeen, diintay wax u qaban lahaayeen. saasaa markaa loola jeedaa. idan qofka muslimka ah mar walba waxaa fiican inuu aad iyo aad ugu dadaalo khayrka iyo wanaagga iyo waxyaabaha ilaahay amray subxaanahu watacaala. khaasatan mawduucan sawaajka ah, khaasatan mawduucan ilaahay tilmaamay subxaanahu watacaala wuu jiri jiray waana sii jiri doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray aadam iyo xaawa ugu horreeyey makhluuq bani aadam marka la fiiriyo. sidaa darteed buu ku yidhi uskun anta wa zawjuka aljanna, adi iyo sawjadaada xasila oo dega oo waxaad degtaan mataqaanaa jannada dhexdeeda. ilaa markii dambe laga soo saaray markuu ibliis siray
oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u diiday shaydaanka u qurxiyey oo iikuna ay cuneen oo la yidhi fiiha taxyown wa fiiha tamuutuun wa minha tukhrijuun dhulkaan idinka khalaqnay iyadaa laydinku celinaa iyadaa laydinka soo bixinaya ihbituu hoobta buu dha ila subxaanahu watacaala hoos markaa u dega mar allaala markay hoos u soo degeen waa xagga bilowga maxaa soo haray nolosha gebagabaday ugu dambaysaa waa nolosha aakhiro xataa waa ku dhex sameeyey ilaah subxaanahu watacaala ina lilmuttaqiina cinda rabbihim jannaat siduu ilaahay u seeday muxuu yidhi kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin idan shay laga maarmaynin inuu yahay ayaad fahmaysaa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dabeeceeyey makhluuqa inuu yahay aad markaa ka fahmaysaa wax mar walba marka ka dambaysa loo sii baahan yahay inuu yahay ayaad meesha ka fahmaysaa ood ka dareemaysaa ayadoo saas ay tahay markaa dadka muslimiinta ah ulama sii jiraan ilaa nebigoodiibaaba amray tanaakaxuu takaafaruu isguursada aad badataane waxaan rabaa inaan badnaantiina idinkugu faantamo ummadaha kale maalinta qiyaamaha saasuu tilmaamaya ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa ku dadaala oo ku socda oo ha joojinina oo mar kasta wada oo isu guuriya oo isu saacida oo isku kaalmeeya xataa ilaahay uu yidhi 3 qofood anaa u kaalmaynaya maxaa ka mid ahaa taa laftiga xadiisku wuxuu tilmaamayaa xafiga guubaabada ilaahay uu ku guubaabinaya subxaanahu watacaala zawaajka ummadda ee uu leeyahay 3 aniga u kaalmaynaya 3 qofood xaq ayay korkayga ku tahay cawnkooda iyo kaalmadooda annaakix waa mid raba inuu nikaaxsado guurkiisana ka raba cifaaf iyo dhowrsanaan inuu markaa ku dhowrsanaado oo xaaladiisu ay sidaa tahay waa qofka noocaas ah ayaa markaa loola jeedaa idan waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu dhex yeelay oo khayrka iyo wanaagga iyo sharafta loogu gaaro loogu helo ay xaaladoodu sidaa markaa tahay idan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu in badan kitaabkiisa ku guubaabiyey ummadda qaasta nebiyada xataa uu ku tilmaamay rasul baan soo dirnay waxaan u samaynay aswaajan wa dhurriya aswaaj macnaha xaasas waxaan u samaynay dhurriyo awlaad marka taa waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu watacaala sida uu qaybka iyo facweynaanta uu markaa ka dhigay uuna markaa gaarsiisan yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam guurkiisii ugu horeeyey da'diisa imisa ahayd waxaa lagu tilmaamaa 25 macnaha 25 sano jir ayuu ahaa waa xilliga aan soo tilmaanay hadda waa xilliga ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay axadka inuu ku dego axadka waa xilliga uu imtiqaanaa waxa badan yahay degdega iyo wax kasto dhalinyaronimada saa darteed baa 25 mar allaala markii uu gaaray ayaa ilaahay xikmadiisa waxa ay keentay subxaanahu watacaala inuu zawaaj markaa galo oo arrintiisu ay sidaa noqoto marka sharaftaas iyo wanaagga ayuu qofku gaarayaa asagoo ilmo yar ah ayaa laga yaabaa inuu mas-uul qaado asagoo ilmo yar ah laga yaabaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu diintiisii iyo waxaasoo dhan uu ku tababar qaato ilaan qof mas-uul noqday oo guri dhaqay oo qof ka mas-uul noqday waxaad fahmi kartaa inuu noqday qof ilaahay subxaanahu watacaala macnaha mas-uuliyaddiisii qaadi karaa taasaad markaa ka fahmaysaa oo aad ogaanaysaa sababtooda waxa ay tahay waxyaabaha kale ee la tilmaamayo ayaa waxaa la leeyahay waxaan waxba ka jirin luqmaan markuu canugiisii waaninayey yaa bunaya aqim الصalaaة waamur biاlmacruuf wanha can اlmunkar واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور غلام marka uu leeyahay waxaa laga fahmayaa ilmo yar inuu yahay غulaam macnaha haddana takaaliifa la saara salaada hagaaji dadka khayrka u sheeg shaqa loo dirayaa waxaad ka reebtaa munkarka waxaa la farayaa dhibka soo gaaraya inuu dulqaato u adkaysto wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min casmi alumuur macnaha takaaliif iyo waxyaabaa la tilmaamaya oo la leeyahay waa inuu saa ahaado waa ilmo ghulaam ah ilmo yariis ah nebiga sal lla alay slam ibnu cabaas markuu la hadlaya yaa ghulaam inii ucallimuka waxaan ku barayaa kelimaad xifdi ilahay wuu ku xifdinayaa xifdi ilahay hortaadaad ka helaysaa subxaana wa tacaala idaa sa'alta fas'al illaah ghulaam cunug yar inuu yahay aad ka fahmi kartaa maanta marka waxaa naga dhaadhacsan oo nala ka dhaadhiciyey 18 sano 17 sano weli ciyaal wahay weli ilmale lagu jiraa 17 sano canug jiraa la yiri oo meelaha aad joogtaan jooga asoo keligii socdood gacanta ka yin haddii la arko waa lagu xirayaa
macnaha waa dhibaato. shukulaad haddaad u geli weysa iyo nacnac waa lagu xirayaa. buskud haddaad u iibin weysa waa 16 jir, waa 15 jir, waa 17 jir, xarigaad leedahay ama waa lagaa qaadana, waxaa noqotay khayr mas-uul. meeshaana waxaa la tababara ilmo yaryariis ah, yaa ghulaam yaa ghulaam yaa ghulaam, mar walba ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala. saa darteed ayaa qofka muslimka ah waxaa mar walba la rabaa inuu dareemo mas-uuliyad asagoo saqiir ah. wa aataynaahu alxukma sabiyan, xukunka ayaan siinay asagoo sabi ah, asagoo ilmo yariis ah ayaan markaas siinay. intaa marka ilaah wuxuu ula jeedaa subxaana wa tacaala qofka muslimka ah daa'iman wa abada waa qof xil qaadi kara. mar walba waxaa laga rabaa inuu noqdo qof xil qaadaya. xilka uu qaadaya ama naftiisa ha ka qaado, ama waalidkiisa ha ka qaado, ama sawjad uu guursaday ha ka qaado, mahma uu yeeshaba caqli waxgarad leh. saasuu markaa cabdullahi ibni camr ibni caas muxuu yidhi ankahanii abi, aabey baa ii guuriyey asagoo ilmo yariis ah. markaas wuxuu ii guuriyey imra'a daata xasab, gabar xasab iyo wanaag iyo diin u saaxiib ah. intaa waa lasii tababarayaa. mar allaala markuu gabadhii xaggeeda aadi waayey oo salaadii uu istaagsan yahay, ilaa wuxuu moodaaba inshaa laftigeeda inay cibaado tahay ma u maleeyo, waa yar yahay. saasaa loogu daray. wuxuu u maleeyaa gabar inta guriga layska keenay inay shaahi u kariso iyo inay mataqaana dharka u dhaqda keliya markaa loogu talagalay. habeenkii o dhan waa ag taagan yahay, waa tukanaa. maalintii o dhan wuu sooman yahay, bas takaata uu tukanaya inay weysadana u dhigto, soonka uu sooman inay afurka u samayso. saasay la tahay. laakiin mar allaala markii lasii tababaro oo tababarkii kusii socdo, axadku wuxuu dareemayaa guurka iyo waxa uu markaa yahay, ilaa markii dambe la tilmaamay asaga laftigiisaba inuu cibaado yahay. oo nebigu xataa xadiis ku tilmaamay wa fii budci axadikum sadaqa, axadkiin galmooshihiisa sadaqay noqonaysaa. matee saxaabadu yaabeen axadkeen intuu shahwadiisa gutamaa rasuulka ilaahi sadaqa loo qorayaa. haa ka warrama haddii xaaraan uu isticmaali lahaa miyaan dembi korkiisa ahaaneen? idaa wadacaha fi lxalaal kaana lahu ajr. saasay ajir markaa u noqonaysaa buu dhahay nebiga. marka cabdullaahi ibni camar ibnu caas aabbey baa gabar igu daray buu yidhi, daata xasab u saaxiib ah, oo wanaag u saaxiiba, oo diin u saaxiib ah. 7 markaan ka baxnaa aabba la sheekaystay gabadhii oo yidhi kayfa cabdullaahi, nicma rajul bay tiri, nin fiican waaye, laakiin habeenkii la ii keenay ilaa hadda mana ii soo dhowaanin, marana nagama furin, sariirtana ma imaanin. way la cuslaatay. nebigaa lagu dacwayey sal alla alay wasalam, wax ka maqnaabaa u kordhaya. waa lagu daray gabadhii, laakiin cilmigii kasii maqnaabaa usii kordhaya. rasuulku wuxuu dhahay ii wac. waa loo wacay. yaa cabdallah kayfa tasuum, seed u soontaa? qaala kula leyl, kula yowm, maalin kasta. kayfa takhtim, seed qur-aanka u dhammaysaa? qaala kula leyl, habeen kasta. khalaas wuu ogaaday nebiga, nin habeen kasta qur-aan ku qatimaya salaad iyo nin maalin kasta sooma. saa ha yeelin buu yidhi. naftaada xaqay kugu leedahaye mararka gobol ka mid ah salaad duko, mararka gobol ka mid ah afur, mararka gobol ka mid ah soon. isku dhexdar cibaadada, adduunkaagana ha ka tegin. saasuu ahaa. marka waxaa mar kasta la saarayaa takaaliif, waxaa la barayaa sidii wax loo samayn lahaa, waxaa la barayaa khayrkii wanaagga. idan waxaan aad iyo aad caawa mawduucu noqday oo naloo soo tilmaamay in tarkiib la sameeyo, in laisku guubaabiyo guurka, in allaala inta guursanna inuu ilaahi subxaana wa tacaala u barakeeyo, inta aan ku jirinna inay markaa dadaalaan. idan ilaahi subxaana wa tacaala khayr fara badan ayuu dhex yeelayaa sawjka iyo sawjeynka. gurigana saasuu ilaahay dhex yeelaya subxaana wa tacaala. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqanana waafajiyo, taacada ilaahayna markaa nagu sugo, guryaha dhismaayana guryaha hagaagsan inuu ilaahay ka dhigo subxaana wa tacaala, oo khayrka iyo wanaagga iyo waxyaabaha kale rabbi jecel yahay ilaahay dhex yeelo. wax allaala wixii shar iyo shaytaan iyo dhibaato ahna inuu ilaahay ka qabto subxaana wa tacaala. taana ilaahay waan ka baryaynaa subxaana wa tacaala. waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa in allaala inta ka cabsanaysa cabsi ku jirta. gabadha waxay ka cabsanaysaa haddii lagu guursado beri waa lagu furaa. ta waxay ka cabsanaysaa haddii lagu guursado ninka amuu kugu xumaada oo nin dil iyo dagaal iyo feer kugu wada amuu noqdaa. way iska fadhisaa ilaa da ay gaarto. ta waxay ka cabsanaysaa waxaad cunto amaad weysaa. ta waxay ka cabsanaysaa ninka maba taqaanide haddaad guri la gasho see xaalkiiu noqonayaa, suu kugu noqon doonaa. ta waxay ka cabsanaysaa hooyadiis amay kula dagaashaa oo dhib iyo rafaad ku gaarsiisaa. ku wuxuu ka cabsanayaa hooyadeed ama dhib iyo rafaad waxyaaba ku gaarsiiyaa. marka waxaasoo dhan in qalbiga laga wada bixiyo, ilaahayna talada loo dhiibta subxaana wa tacaala, ummadduna ay noqdaan ummad ilaahay talada u dhiibata. intaa ka bacdina sunnadaa qiimaha badan ee khayrka iyo wanaagga leh in qofkuu markaa ku dadaalo oo khayrka iyo wanaagga ku socdo. imaamyadii hore ka mid ah ayaa wuxuu yidhi haddii ay dhacdo in xaaskayga dhimato oo markaa la aaso, isla markaan ka soo noqdo waxaan jeclaan lahaa inaan gabar guursado. waa lala yaabay. maxaa dhacay baa la yidhi. waxaan diidayaa buu yidhi inaan ilaahay la
la kulma anigana anigoo casuubi ah ano iskaabula ah inaan ilaahay u tago taasaan nacayaa buu yidhi. aad iyo aad bay markaa u xun tahay, dhib fara badanna markaa way tahay. soomaalida laftigooda xataa waxay dhahaan gabdhuhu haddii ay qaangaaraan oo aynan guursanin, in allaala intaysan guur gelin xaydka waxyaabaha ka soconaya dembi buu ku yahay, waa loo qabsadaa maalinta qiyaamaha. waa hadal ay soomaalida markaa iska dhahdo, laakiin mar haddii la guursado ay iska garoob noqoto xataa wax loo haysto markaa ma jiro. waa hadal ay dadku iska dhahaan, laakiin sideeda markaad fiiriso laftigeeda wuxuu ka mid yahay guubaabo, hadal guubaabo ahoo ummadda markaa ku taxriidinaya oo ku guubaabinaya guurka ayuu markaa ka mid yahay. insha allahu tacaala bal hala dadaalo, ilaahayna ha laga baqo subxaana wa tacaala. dumarka laftigooda ha ogaadaan inay mas-uuliyad samayn karaan, inay mas-uuliyad qaadi karaan, inay wax maamuli karaan, inay nin maamuli karto. nin dhan oo akhyaar ah oo baxaya oo meel tegaya oo xafiis furaya aan laga yaabaa inay maamusho. marka xaaladdaa inay ogaato, waxaa laga yaabaa inay ka cabsato wax weyn u noqoto, laakiin markaad dhex gashaad ogaanaysaa inaad asagoo dhanba maamuli karto, ood marna siixin karto, ood marna fadhiisin karto, ood marna jiifin karto, ood marna sirsiri karto. wax weynba inuusan markaa ahayn insha allahu tacaala. ilaa xaqhana waafajiyo billahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.